sheekh sayladani waxay leedahay sheekh waxaan ahay gabadh waxa weeye xaasa markaa hooyaday oo aan aad ugu samafalo ayaa waxa dhacda iyaduna inay ugu kakan tahay aniguna waan xidhiyaa oo waxaan ku dadaalaa xaqeeda inaan gudo iyaduna way jaraysaa wayna ay cadhaysan tahay iyadoo markaa dad kale nagu dhex jiraan oo igu dirayaan dabada sheekh arrinkaa waalidku igu cadhoonayo aan dembiga ku lahayn waxaan dhib u geystay jirin dembiba ku leeyahay waxaana sheekh weydiinayaa sidee aan u heli karaa cafiska hooyaday si ay sidii hore igu noqoto afiiduna wajazaaka allahu khayra labada waalid in loo samafalo waa waajib wa bilwaalidayni ixsaana alwaalidaat in loo samafalo wanaag loo sameeyo hadal fiican iyo qowl fiican iyo ficil fiican marka dee hadday adkaato ama dadka dee waa laga yaaba dadka qaar inay waalidkii ama hooyadii iyo aabihii qofkiina isku diraan ama dad ay qaraabo yihiin ama dad kale walaal yihiin inay isku diraan marka waxaa la rabaa horta qofka dadka isku diraya waa khatar isagu ee waalidkii iyo ilmihii dhala isku diraya kaasi khatar buu ku jira laa yadkhulu jannata namaan laa yadkhulu jannata qataad jannada maba galaba qofka dadka isku dira halkana war buu ka qaadaya halkana warka uu sheegay jannada ma gala qofkaas sida rasuulku inoo sheegay calayhi salaam namiima leh waana dembi weyn namiimada dee waalidka cafiskiisa qaab kuu raadin waa inuu ka shaqeeyo sidii ugu dhow ee labada hooyadii ugu samafali lahaa waa inuu u tago waa inuu yidhaa waan ka wax kasta waa kaa raadin waa inadi cafi waa inuu madaxa ka dhugo hooyadeed waa inuu madaxa ka dhugo ma laba lugooda ka dhugo ku tira iyo cafi waayo ilaahay baa de geeri baa dhici karta iyadoo kuu carayta ka hor hadday dhimato hooyada walciyaadu billah oo raalliba ka ahayn dee khatar baad ku jirtaa marka intaani naftu kaa dhicin ama iyada ama adigaba dee ilaahay baa ka hor dhimo doonaba waa inaad cafiska raadiso caawa waa inaanad seexan ilaa waa inaad raalli kaa tahay wax kasta waa sahaalo laakiin labadaa waalid ama hooyada ama aabbaha raadaanshiisu waa inaad raadiso rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi raqiba anfu uma raqiba anfu uma raqiba anfu waayo yidhaahda waa ninka raba waa ninka soo gaaray man adraka waalidaah ama abawaah labadiisii aabbuu soo gaaray ama mid ka miduu labadii waalid soo gaaray ilaahay baa soo gaarsiy loomana dembi dhaafinba kaasuu khasaaray ilaahay naagtaa kufay abcadahu llahu allaha fogayaa leh marka labadan waalid waa fursa hadduu xataa midnool yahay waa fursad kuu taalo adiga waa jaanis baad haysataa intaa ay nooshahay hooyada raaligeli qofkaa kugu dhex jirana waxba hala hadlo adiga waxa muhiima inaad hooyada raaligeliso wax kastaba ha u sheego qowlkaaga iyo ficilkaaga waxaad ka shaqaysaa adigu inay raalli kaa noqoto war kastaba ha loo sheego adigu u tag ha ku aragto hadday ku aragto oo aad madaxa ka dhukato waa dee raalliba kaa noqonaysaa waalidku dee uu qalbi jecsan yahay waalidku waa beer de maaragta waalidku ilmaha waalidku aad buu ilmihiisa ku naxariista waxaa la yidhi ninaad dhashay kuma dhan waalidku awlaadiisa culays bay ku haysaa qofka waalidkaa garna imanka ilmuhu dee aad u garan maayo laakiin qofka waalidkaa dhalay marka wax yar ku dhacdo raba inaanu habeenkaa seexay marka la dhaa waxaasaa marka la dhaa ilmihiisii laba habeen oo la laayay waxaa laga inaan u seexanba ama dee isu cagaysaynaan markaa waalidku dee waa naxariis buu ilaahay ku abuuray jalla wacala waalidku waa raxma waa naxariis ilmahan dhalinyarta ahi ama dee aan weli carruur yeelan ama aan dee gurye yeelan waxba ma dareemi qofku sida raalimka markuu waalid noqdo waxaad u dareema qofka waalidkaahi ee marka waalidkaahi ee waalidkii nool yahay qiimaha u garanay xataa hadduu ilaa iqaad intuu qaadu gaadhsiinayaa kacbada geynaya
ويوحو قرنيا قيمة والدك يقرن إلهينا هينا وافق سيو تبارك وتعالى